السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو حبيب وإذن الله هيجا عاجسين وياهي سان هروسو بلنقاضي maanta waxaan soo tabinayaa amaan idin la wadaagayaa qisadii taxanaha labaad inoo noqonaysay ee murugada lahayd. saan hore magaceeda ku soo sheegay qisada magaceeda waxa la yiraahdaa laba kala damiir roon. qisada magaceeda waxa la yiraahdaa laba kala damiir roon. qisadani waa qiso aad u murugo leh, waa qiso naxdin badan leh, waa qiso fikir badan u baahan qofku inuu ka fikiro intaanu saa ku dhicin. si gaar ahaan artayaan hablo is oran malaha abwaanku ama daa abwaan xabiib idinka u mid ka hadla oo idinka wax xumeeyay u mid ka hadlaya yaani soran tii araga ku sheegaynay rag dumarka xumeeyna waan soo wadnaa tii labadooda heer gaaray isla gaaray ama farxad isla gaaray aan ka sheekin waan soo wadaa. qisadan sidii tii hore kale maaha balse way soo shabahaan. qisadan waxa ku dhacday laba qof ay ku dhacday waa wiil iyo gabadh ay ku dhacday. wiilkan iyo gabadhani inkastoo magacooda la soo sheegin sidii tii hore kale waxa ka dhacday Soomaaliya. aad baan ugu mahadcelinayaa walaashay oo iyadu ii joogta Muqdisho in badanna ila wadaagta qisooyinka. inkastoo jeclaa magaceeda inaan ka sheego balse haddana waxay damacday inaan ka sheegin iyada iga dalbatay. laakiin walaashay aad baan marba kugu mahadcelinayaa. waxaad ka qayb qaadataa qaybaha asxaabta YouTube-ka Abwaan Xabiib channel ku xiran aad ka qayb qaadataa oo si aad u farxad geliso markaste oo aanay u caajisin waxaad la soo wadaagtaa qaybaha qisooyinka. aad baan kaaga mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. qisadani waxay ka dhacday Muqdisho. waayahay qisadan waxay ahayd waqtiyaadka ka mid ah ayaa waxaa jirtay gabadh ka dhalatay qoys taajiriina ay gabadhani ka dhalato gabadha iyadoo qoyska taajiriinta ka dhalato heer kibraanimo heer maraysa waxay ku darsatay inay aad u qurux badnaato. waliba gabadhi waxay ku darsatay inay aad u sii qurux badnaato. waad garan kartaa adigu gabadh qurux badan maanta cidi ku dhici mayso iyadoo qof ku soo dhacdo ama qof ka doonato mooyaane iyada cid ku dhici mayso. ka israada inanta la hadal inanta qurux badan la hadal israada wuxuu ka baqanayaa ama ka xishoonaya inay ku leedahay ku taalo maadigoo noocan maadigoo sidana. haddaba saas iyadoo taas jirto waxaa dhacday inta aad ka qurux badnayd taajiriinta ka dhalatay inay wax inaniba uu ku dhici waayay inantii wax wiiliba uu ku dhici waayay inuu jeclaan weyday iyadana wada jeclaan waayay waana loo soo bandhigi waayay. waxay saa muddo ahaadaan aakhirkii waxaa damcay wiilkan ay qisada ku dhacday ayaa u soo bandhigtay jacaylkiisa. wuxuu ku yidhi saasa jirta waxaan doonayaa nolosha kula wadaago oon nolosha wada meel marino oo nolosha kula wadaago ee ka waran